السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashin Maciman kusoo dhawaada channelkayga waxaan rabaa xakan maanta waxaan ni soo bandhigo walaalooyin skinka ay soo weydiiyay collagenka ma cabbi karno sida collagenka lo'da amba ha noqoto kalluunka amba ha noqoto chicken wixii doonaba laga sameeyo aan taaban karin maxay qaadan karaan maxaa collagenka u dhigma muxuu sataraa collagenka dumar ahaan aad ugu fiican yahay akhwaati sawada ogsoontiin dadka waliba thyroid kale aad u ugu fiican yahay akhwaati siiba kan laga sameeyay caleenta waa maado aad ugu fiican dadka thyroid kale waxa ku jira iodine maadada la yiraahdo badda hoosteeda laga soo saaray caleemadan waa kan caleenta biyaheegi markay la karkariyay sidaas ka soo baxday waa biyaheegi okay markii caleentii la shiidayna waa kan sana ka soo baxday waa arkaysiin labada nooc weeyaan markaas waxa dhacaysa kan timaha la marsan karaa timaha dadka ka cabanaya qalalka badan dhibaatooyinka badan iska qabsiga oo dhan timaha masha Allah way ka saaraysaa dry skin ka la dagaalanta xitaa kan face ka dad marsataan face ka qalal dambe kuma arkaysid marka maxaa ku darsanaysaan akhwaati waxa ku darsanaysaan kaas iyo waxa lagu darsanayaa akhwaati dacarta ayaa lagu darsanayaa haday timo tahay iyo haday waji tahay masha Allah lagama sheekeyn karo dacarta freshka xitaa waa la cabaa akhwaati waa ku darsan kartaan smoothiga wajigaagu ku cayilaya drygu ka baxaya masha Allah waxa kale timahaaga dryga xitaa ka baxaya waxay noqonayaan timo israaca timo stop lahayn timo aan isku dhagdhagayn marka waa maado aad muhiim u ah oo faa'iido badan leh maxaa laga helaa vitaminada laga helaa rabaa inaan soo bandhigo insha Allah aan la soo koobi karin akhwaati collagen bay number 1 ku tahay collagenkana waa wada taqaaniin waa waxyaabada laga sameeyo xoolaha lagu hooga saasoo kale marka iyadana waa maado badda hoosteeda ka soo baxda faa'iido badan bay ku leedahay waxay la dagaalantaa dry skinka waxay la dagaalantaa eczemada haddaad caruurta u shiidaan siisaan smoothie uga dhigtaan jirka u marisaan aad bay ugu fiican tahay akhwaati moisturization bay tahay masha Allah oo si fiican jirka u qoynaysa waxyaabo badan bay masha Allah ku tahay vitaminadeeda lama soo koobi karo waxyaabo badan oo masha Allah dumarku ay u baahan yihiin bay kamid tahay siiba dumarka thyroidka lagu soo sheegay aad waxaan ku waanin lahaa inay qaataan muhiimad badan bay u leedahay masha Allah aan la soo koobi karin waxa kamida dadka weight loss ka doonaya inay sameeyaan jirkoogu adkaanaya oo israacaya jilic ma noqonayo markaad maadadan cabtaan jirkiina uu adkaanaya aad buu fiicnaanaya akhwaati eczemada eedan finanka meelaha gubgubto kale aad bay ugu fiican tahay waxay si progressa skinka number 1 bay u tahay waxyaabada kale kamida ragga way kobcisaa xoogaa kor bay u qaataa ragnimada maskalada iyo juwanka ma aragtay meelaha iska galaan lafaha iyo muruqyada oo kale way toostaa masha Allah way adkeynaysaa lagama sheekeyn karo akhwaati masha Allah tissuega jirka aad bay u fiican tahay immune systemkeega anti aging weeyaan waxyaabo la marsado oo faa'iido la weeyaan waxa kale xanuunka alopecia ku dhaca timaha caruurta amba dadka waaweyn haduu ku dhaco masha Allah iyadii taas hadaad ku heshid oo isku samaysatid believe me masha Allah habeenkad ku seexinaysaa subaxina waa ka dhaqaysaa lagama sheekeyn karo kan xoogaa waxa weeyaan ruuxanina ma jecelo laakiin dumarka kale fiican tahay marka caleenteeda saa loo shiido kale way marsan karaan all day 7 saacadood waa inaad ugu yaraan ku joogtid sheegay sida uga mari dhaliisa subaxaad ku joogaysaa 7 saacadood ka bacdi waad iska qubeynaysaa faa'iidadeeda masha Allah arkaysaa sida ugu degdeg badan أنا ما شاء الله وحيابنا نشري وحيابنا نتيجة أد وناكسنتاي كنا عنتان كوكوفي عياي وجهه ولا مرسن كراي سكينكا هدي عروت ألوبيسيا كود عدي أد أقول دالا أخواتي aad buu fiican tahay waxa kale oo caruurta jeelka marsada timaha ee ku naba amba dumarka jeelka isticmaala inta badan kan hadaad jeel ka samaysataan timaha wax ma yeelayo faa'iido badan buu siinaya nafaqooyin fara badan buu siinaya kan iyo saliidana isku darsanaysa jeel cajiib ah samaysanaysa waad ku bixi kartaa wax ura male wax dhib isbedel male wax dhibaato male masha Allah iyada iyo dacartii kan baad isku shiidaysaa sidii creamka oo kale meel ba dhiganaysaa waxa sameynaysaa masha Allah timahaaga gel buu noqonayaa real gel buu noqonayaa timahaagiina inay ku sii fiicnaadaan ma damashka ma gaarayo sida uu ogaada marka muhiimadda ay leedahay ba kamida marka masha Allah dadka walaalo waxaan ugu soo bandhigay inay ka faa'iideystaan dadka ilkaha kale dhibaatooyin ku qabo kale hadii maadadan aan caruurtiisana siisaan cabaan ama dadka waayeelka kale waxay ugu fiican tahay waa aragteen ilkuhu soo dabca uu adkeynaya maadadan hadii cabaan aad buu adkeynaya masha Allah calciumka ilkaha kale lafaha kale waa waxyaabada adag
kahortag wuxuu leeyahay maadooyinka hargabka oo kale qofka caba aad ugu fiican uu ka hortagaa cadceeda uu ka caawiyaa akhwaati dadka cadceedu ay ku dhacayso kale aad buu uga caawiyaa haddaad kareem ahaan markastoo soo rooxdid aa marsatid iska maydhid waxaa la doonayaa 20 second wax yar baad ku joogaysaa 5 minute waad iska maydhaysaa 5 minute iska maydh maasha allah deen maasha allah waxaan kula skinkaaga lagama sheekeyn karo halka mar aad marsatid ayaad feedback wejigaaga aad ku arkaysaa waa sawiraysaa markii hore markii dambe waxyaabo badan dadka xubnahooga xidhxidhamaan dhiigaga waad aragteen tartariiqa ku dhasha dumarka taagnida badan amba markay uurka yeeshaan amba culayska badan u keento varicose vein baa la dhadaa waad ogtihiin xididadaas kusoo baxa jirka aad bay ugu fiican tahay iyada iyo loos kale ayaa u fiican marka hoostaan niisoo dhigaya looskan nii sheegeena iyada iyo looska haddaad cuntaan maadadana aad samaysataan saliidaasna aa cabtaan maasha allah lagama sheekeynaya akhwaati waa inaba caadi maaha looskaas waxaad samaynaysaa isagana waad cunaysaa ovenkaa la geliya waa la dubaa waa loof adag markaa la dubo hoostiisu markaa waa jileec waa la cuni karaa kanaan sheegayana maasha allah waad cabaysaa smoothigaad ku darsanaysaa akhwaati xidhmihii ku xidhnaa way isfurfurayaan maasha allah sa ugu degdeg badan saliidana afka ka qaadanaysaa waa faa'iidooyinka siday iskula shaqaynayaan wax walba sibay iskula shaqeeyaan siday iskula shaqaynayaan baa niisoo gudbinaya dadka jirhkoogu dhiigagoogu xidhxidhmayaan faa'iidada ugu horeyso maasha allah nii sheegayo waa number 1 looskaas iyo haddaad isku heshid geedka irish simus baa la dhahdaa simus baa la dhahdaa maasha allah lagama soo kan karo isaga markaa smoothie ahaan saad uga samaysan wixii oo dhan waad ila soo xidhiidhaysaan insha allah faa'iidada waa nii sheegaya walaalaha xidhmaha dhiigaga kule lugaha kale aad bay anfacaysaa dadka maad aragtay skinkoogu dryga markasta aan ka bixin dhibaatada ka qaba maasha allah iyagana lagama sheekeyn karo jirkaaga waxay siinaysaa mineral wax la dhahdo oo jirkaagu qoyaan maasha allah wuxuu yeelanayaa moisturation vitamino inaba caadeen bodigaagu isbedelaya markaad cabitaankiisa aad bilowdid iyo saliida iyo bahashan oo smoothie samaysatay lagama sheekeyn karo akhwaati waa waxyaabada loo baahan yahay markaa inaan nolosha la bedelo oo wax badan qofka bini'aadanka faa'iidooyinka uu ka bedelo ay ka mid tahay qurxinta jirka timaha intaba geedkanu diyaar buu u yahay skinkaagu bedelayaa timahaagu bedelayaa guntaadiibuu bedelayaa lafahaagiibuu adkaynaya akhwaati way fiicantay in caruurta la siiyo because waad aragteen dadka madow ayaa aad u cuna geedkan dadka madowba aad u cuna dadkeenu way ka qatayin waxaa markaa dumarkeena inta badan tayradka ku badiyey galanka waxyaabada iodiinka ku yar soo sidaa darteed aad baad uga helaysaan maadadan cunaan dhihi lahaa insha allah wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu aan isku soo ducayna akhwaati waxaa mar walba niigu soo qaadanaya saliidan waayo faa'iidooyinkayga fara badan baan arkay sidaa darteed haddii shay walba maasha allah labadii la isdheelitiro vitamiinkii iyo la isku qaato iyo cuntadii oo la bedelay waxa qofku isbedel baa ku imanaya skinkiisa maqaarkiisa caafimaadkiisa sidaa darteed baan markaa niila jeclaaday insha allah wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu akhwaati aan isku soo ducayna insha allah sheer gareeya insha allah videoyada saa waxaa weeyaan waxyaabada kale ula socotaana taabta meesha saad u aragtaan wixii nii soo dhacaya insha allah